ورحمة الله وبركاته أصحابتي وعليكم السلامي وأنا أحمد عبد الوهاب علي maanta waxaan rabaa inaan barnaamijkan wada fiirino oo aad u cusub maalmahan dambe aad macnaha raantiisa u badan tahay oo la yiraahdo CJ on Style. CJ on Style waa barnaamij cusub oo aad iyo aad dhalinyarta maalmahan uga shaqeystaan marka inaan hadda ka hadlo ama fiiriyana waxa aad iyo aad igu dhiirigeli qof asxaabta kamid ah asxaabta ku xiran teamkeena marka sida awgeed waxaan ku qasbanaa inaan dib u sii fiiriyo oo aan wax ka ogaado qaabka uu shaqeeyo sida uu yahay si wax la hubo oo jira aan asxaabta la wadaagno marka dhowr su'aal baan rabnaa inaan ka jawaabno iyo sidii maxaa la yiraahdaa la isaga diiwaan geliyo oo qaabka uu shaqeeyo iyo qaabka wax looga helo intaba marka koowaad horta waa maxay CJ on Style sheeko dheer oo inta badan asxaabta ay ka sheekeena jirta laakiin marka kooban waxaan rabaa inaan ku iraado magacan hadda waxa la isla xaqiijiyay in qaabkan hadda barnaamijkan isaga CJ app ka ah iyo CJ on Style magaca kamina iskale inay kala duwan yihiin kaas oo ah mid la aasay sanadkii 1953 kan uu ka duwan yahay marka muran badan ku jira marka social media iyo qaabka waxa looga qoray sida wax looga review looga sameeyo markaad fiirsid laakiin muhiimadda waxa la rabnaa inaan ka hadalno maanta lacag ma laga sameeyaa mise lagama sameeyo su'aasha waa taas waa laga sameeyaa marka su'aalaha aan ka jawaabayna waxa kamid ah waa maxay marka sidee buu shaqeeyaa CJ on Style marka waa companygaas aad aragtay oo u shaqeeya sida kambaniyada waaweyn oo ay kamid yihiin sida Alibaba Amazon oo kale iyo Alibaba iyo Jumia iyo kuwa kale eBay barnaamijyadaas qaabkaas oo dhan ku u shaqeeya magacaas ayaa iska leh marka kan ma iyaga ka iska leh waxa ka labo la cadeeyay in aysan shaqo isku lahayn ama ay kala madax banaan yihiin marka barnaamijkan hadda isaga laakiin lacag ma laga shaqeeyaa jawaabta oo kooban waa haa asxaab badan ka shaqeysa asxaab aan naqaan ka shaqeysa iyo ka sameysa waana laga shaqeystaa waana laga sameeyaa CJ marka qaabkee loogu shaqeystaa qaabka loogu shaqeysto waa saddex qaab kaliya loogu shaqeystaa inta hadda ku cad page-koodan laga arki karo qaabka koowaad waxa waaye shopping and bonus macnaheedu waa qaabkan waa inaad wax kala la iibiyo aad ku yeelato commission lacag dhiganaysa lacagta aad dhigaystay boqolkiiba intay la egtahay waan is arki doonaa qaabka ay lacagta u shaqeynayso lacagtaas ayaad commission ku yeelanaysaa qaabka labaad ee u shaqeeyaan waxa waaye affiliate waxa waaye si fudud daan u dhaho waa in badeeca qof uu leeyahay aad qaada oo qof kale aad tusiso si uu iibsado ka bacdan halkaas aad ka hesho khidmad marka affiliate waxa waaye in ayaga aad geersiiso page-koogan inaad qof kale gaarsiiso ka bacdina qofkaas uu lacag ku shubto adigana aad wax ka heshid hadduu iska diiwaan geliyo oo wax uu ku shubto iyo haddii isaga lacag sameystay wal inta baad ka helaysaa marka qaabkaas waxa loo yaqaanaa affiliate waa lambar 2 lambar 3 waxa waaye waa fixed salary waxa waaye waa qaab ay darajooyin u sameeyaan ayaga marka aad gaarto darajadaasna ay ku qorayaan mishaar asxaab ay u soo direen dokumentiyo ay ku cadeynayaan in contract iyo heshiis ay la galaan u noqdaan agent ama wakiil u noqdaan way jiraan inkastoo wali arki qof mishaarkii uu qaatay ka soo galay maxaa la yiraahdaa xagga wakiilnimada laakiin dokumentiyo contract iyo heshiis loo diray ayaa jira marka midda u dambaysa qatar ma leeyahay sida ugu fudud aan jawaabta ugu ka bixin karo wax walba oo markaas cusub ama jira waa inaad ka fikirtaa qatartiisa iska ilaalisaa marka qatar waa keeni karaa xilli kasta ayuu isbedeli karaa oo sida hadda looga shaqeysto si ka duwan noqon karaa sida marar badan hore u dhacday marka qatar waa yeelan karaa taasna waxay keenaysaa inaad taxadar badan ku bixiso oo waxaad haystaa iska wada gelinin waxaad awoodood ka maarmi karto bari kamaan haday ka lumaan aad ka maarmi karto inaad geliso ayaan mar walba ku talinayaa sidoo kale sidee la isaga diiwaan geliyaa waxa weeyaan way sahlan tahay tusaale linkigan oo kale ayaad helaysaa linkigan oo kale ayuu qof kuu soo dirayaa markuu linku kuu soo diro linkiga dushiisa ku dhufanaysaa linkiga dushiisa markaad ku dhufato wuxuu si fudud ku geynayaa halkii aad iska diiwaan gelin lahayd macnaha linkiga markaad ku dhufato si fudud wuxuu ku geynayaa halkan marka aad tagtid ama wuxuu ku saari karaa dadka qaarkood wuxuu u soo saaraa page wuxuu u soo saarayaa markaad soo ku dhufato linkiga oo kale toos wuxuu ku geyn karaa halkan oo kale marka halkan markuu ku keeno si fudud haddii aad teleefankaaga Android u yahay ama barnaamijka isticmaalka marka aad yaqaana halkaas uu ku soo saaraya waadna ku dhufanaysaa kadib markaad ku dhufato isla markiiba waxa toos isu furaya waad arkaysaa daaqadan kabacdina waxaad buuxinaysaa halkan username-ka waa magac waxaad ku gali doontid magacaada
iyo xarfo la soo gaabiyo ama numberad ka dhigan kartaa adoo aad garanaysid. halkaan waxaad samaysanaysaa number sireed adoo aad taqaanid oo ilaa 8 xaraf ka kooban. halkaan sidoo kale number sireedkaad ku celinaysaa. halkaan waxaa kuu soo galaya qofka kuu soo diray linkiga aad iska diiwaangelisay koodhkiisa halkaan kuu imaanaya siis automatic waaye taabankaas ma taabanaysid. kadibna waxaad imaanaysaa halkaan oo waxaad gashanaysaa teleefonkaaga waddanka aad joogto. hadda aniga waxaan joogaa Soomaaliya hadaan joogo halkaan aan ku dhufanaya daaqadan ka bacdina waxaan ka dooranaya halkaan Soomaaliya aan ka dooranaya. koodhkan siisaas ayaad u goorinaysaa lambaradan oo halkaan aad gelinaysaa. ka bacdina waxaad ku dhufanaysaa halkaan ay ku qoran tahay register. kadibna markaad iska diiwaan geliso toos waxaad ugu jirtaa. okay, marka sida caadi markaa gudaha soo gasho halkaan imaanaysaa. marka sidee lacag loo dhigtaa isaga CJ marka aad inaad lacag dhigato halkaan ayaad imaanaysaa wada deposit. horta intaan lacag dhigasho gaarin waxaa kaloo rabaa inaan kugu daro intaan bal fiiri. marka haddaad rabto inaad xog isaga ku saabsan aad ogaatid halkaan aqri. haddii waxa lagu abaalmariyo asxaabtaad la wadaagto iska diiwaan geliyaan halkaan ay ku imaanayaan. sidoo kale haddii aad qof VIP heersan la gaaro ama darajooyin la gaaro waaye haddii aad gaartana halkaan ay xogtaad imaanaysaa. marka rabto inaad qof la wadaagto halkaan ayaad tegaysaa sida caadiga ah waxaad ku dhufanaysaa halkaan ka bacdina wuxuu kuu keenayaa sawirkan kan ayaad koobiyeynaysaa oo qofka aad u diraysaa ama aad kula wadaagaysaa. haddii marka ay halkaas kasoo gudubto oo imaano lacag dhigashadii halkaan markaad timaadid waxaad ku dhufanaysaa halkaan deposit marka rabto inaad lacag dhigatid. halkaan waa halkii laga kala bixi lahaa laakiin maxaa ka horeeya halkaan waxaa leeyihiin wax la yiraahdo kambaniyashan ilaa iyo 4 meesha kaaga muuqdo waa shamganiye iyo shirkada ay la shaqeeyaan. macnaha haddii aad ilaa iyo $50 aad dhigatid ama $30 ayaa lagu ugu horeysa la dhigtaa dhigatid waxaad helaysaa level 1 aad tahay commissionkaagana waa 6.20% maalinkiina $50 ayaad leedahay. haddii aad dhigatid 2000 haddii aad dhigatid level 3 ayaa tahay maalinkiina $60 ayaad helaysaa 30% ayaa commission leedahay. haddii aad 500 dhigatid level 2 ayaa tahay maalinkiiba $55 ayaad helaysaa 8% ayaa leedahay. 5,000 hadaad dhigatan level 4 ayaa tahay maalinkiina $70 helaysaa 32% ayaad leedahay. marka halkaas aday kugu xiran tahay waxa aad dhiganaysid laakiin mar walba waxaan ku talinayaa inuu meesha ugu hooseysa in laga bilaabo. lacag dhigashada marka aad joogtid marka halkaan aad ku dhufanaysaa. halkaan markaad ku dhufato lacagtan ayaa ah lacagta aad ku soo dhigan kartid iyo tambo. laakiin mid waa mid ugu sahlan oo hadda la wada yaqaan lacagtan USDT la yiraahdaa ama trunk. waxa ugu sahlan oo la sheego waa inaad isla markiiba inaad tagto waxa la yiraahdaa iska diiwaan geliso Binance oo lacagtan aad soo iibsato Binance aad dollar dhigto ka bacd lacagtan aad soo bedelato kadibna aad halkaan kula soo noqoto. laba qaybood dambe ayaan qaybaha kale ku soo koobi doonaa oo qaabka lacagta loo dhigto aan ku sheegi doonaa. laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego Soomaaliya marka ay joogto waxa dib badan ay ka haysataa sidii lagu confirm la verify gareyn lahaa account aad ka samaystay Binance. hab kale oo aad u sahlan oo meesha laga filaan ahaan insha Allah taala helnay oo ku sahli doona aadan u baahanayna Binance inaad samayso oo aadan u baahanayna passport inaad samaysato oo aad u baahanayna waxaas oo dhan si sahlan aad ku dhigan kartid lacagtan aad ku soo sarifanaysid. laba account bas aad u baahanaysaa teleefonkaaga hadaa sahal u yahay haddii Golis u yahay haddii Hormuud u yahay haddii uu yahayba kamanidan hadda wax laga shubto lacagahan electroniga ah kadibna si fudud dib ugu shuban kartaa. marka insha Allah taala qaybta kale video gana dheeraad mar rabo ayaan kula wadaagi doonaa. haddii aad rabto inaad iska sii diiwaan geliso linkiga barnaamijkan waxaan ku dhigi doonaa videogan hoostiisa oo YouTube-ka yaala aad ku daawanaysid Magmon Isiman 100 haddii TikTok-ga ku jirtiina profile-kaad ku dhufanaysaa TikTok profile-kiisa ka bacdan YouTube-ka toos ku geynaa videoga hoostiisa ka fiirinaysaa halka description-ka ayuu yaalaa insha Allah taala iyo comment-ka koowaad. marka qaybta kale la soco waan idin salaamayaa. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.